وقابر يا وقلكاتايا وقابر يا وقلكاتايا وقضى كرايا ووطني وقابر يا وقلكاتايا وقابر يا وقلكاتايا وقضى كرايا ووطني عقلي وعليك كرامة وطيب وكر علمي لو وقتي ولا صلاة ووطني اسمي وطني ووطني اسمي وطني عقلي وعليك كرامة وطيب وكر علمي لو وقتي ولا صلاة ووطني اسمي وطني ووطني اسمي وطني نبضك وضع ووطني واحلى هذا النعم ووطني واحفظ الدورة ووطني وطنك بالسيارة ووطني وشر وطن ووطني ويله للجرا ووطني اسمي وطني اسمي وطني نبضك وضع ووطني واحلى هذا النعم ووطني واحفظ الدورة ووطني وطنك بالسيارة ووطني iyadoo oo ay tahay maalintii saddexaad ee ololaha doorashada madaxweynenimo ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu maanta u lahaa xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa simug iyo miisaan leh u muujiyeen cududooda taageeranimo ee xisbiga wadani ee degmada Boone ka tirsan gobolka Seleem taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa aroortii horeba buux dhaafiyay wadooyinka halbowla oo degmada Boone iyaga oo ku xarnaa calanka astaanta oo ah xisbiga mucaaradka ee wadani sidoo kale iyaga oo ku qaylinayay erayo haldhigo ah xisbiga wadani sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay taageerayaal aad u fara badan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani iyaga oo sheegayna in ay u baahan yihiin isbedel la joogo waqtigiina isbedelka loo baahnaa waxaana hadalka furay caaqil abi waadan jaamac oo kamid odayaasha degmada Boone kuna Maxamed isla hadalka u dhigay wadani hanoolaado hajiro hajoogo isbedel inta markaan ka baxo dhammaantiin aan u mahad salaamayna u mahad celinaya inta badan ee joogteen hadalkaygu intidiisu dhuxudkiisu waxa weeyaan maxaan maanta doonaynaa waxaan doonaynaa waxa weeye maanta waxa weeye kulmiye waan aragnay 7 sano ina soo xukumayay waan barannay wixii aan ku barannay aan ku aragnayna haddaan sheegti nidhaahno sharciga iyo doorasho iyaanan aad u sii fasaxay ama nin weyn baan oo ma dhex galayo laakiin waan isognahay wuxuu yidhi nin aniyahuna waan isognahay wadani waxaan doorannay ee u raacaynay waxa weeye casharkii aan ka barannay wadani iyo raadadkii aan ka barannay kulmiye markaa waxa weeye inay isbedel baan u baahannay isbedel cusub baan u baahannay wadani waxaan ilaahay ka rajaynaynaa oo aan aad iyo aad ugu tuunsanahay inay waddanka isbedel wanaagsan oo dhinac walba gaadhsiiso oo aqoonsi gaadhsiiso oo cadaalad gaadhsiiso oo dhaqaale gaadhsiiso oo darajada ay waajibkooda ay ummaddu xaq ugu lahayd ciddii la doortiba ay ku lahayd sida ummadaha kale inay gaadhsiisaan doonaynaa sow sidaa maaha saan ku dooranaynaa وعويان هذا وقف مرض إسلام وعد كأن وحن نسينا الناس وماها وطري هجر لا الموسينا هجر لا الموسينا بل
بلنتين وحويان ووطني وعن دين شيئا دليل بدن باجرا دليل لهنا maanta way noogu horeysay waa kabi baa la yiraahdaa isku badbadicin waxa weeye anshaxana waan ilaalinayna haddaan nahay wadani anshaxa xisbigana waan ilaalinaynaa waayo aad iyo aad aan u dhowrno aan sharafkeenna dhowrno sharafka xisbiyada kalena aan dhowrno innaguna waajibkeenna aan ka soo baxno laakiin waxaan leeyahay oo nagu adkaynaya hagar la'aan waa inaan xisbigaa wadani aan isgarab taagnaa oo aan siinaa codkeenna isagaa ina gaadhsiinaya meel wanaagsan iyo guul insha allaahuna isagaa guulaysanaya sidaa iyo maalin wanaagsan idinkana sidaa aad u dadaalayseen eed aroortii ugu soo baxdeen eed heeganka u tihiin aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa rag iyo dumarba khaas ahaan haweenka kaalinta weligoodba ragga way ka dheereeyaan markay xamaasadi jirto way ka dareen badan yihiin sidaa iyo maalin wanaagsan waxaan u soo baxnay iminka maanta ee halka kani waa wadani weeyi in hambaliyadiisii inaan halka kan ku qabanno oon isugu tegno ka hore waan ogay yaa kulmiyo waan ogay waxa uu dalka ka qabtay waan ogay waxa uu sameeyeyna waan ognahay si raacraaci mayna iminka mustaqbalka aan sugayno ee maanta aan u dooranaynaa wadani waxa weeye dulqaad iyo wadaninimo iyo inuu dalka wax u qabto waxa aan u taaganahay maanta waxa weeyaan mustaqbalkiisa inaan hambalyo rag iyo dumar isugu tegno oon ka bixinno sow maaha waxaad u taagan tihiin wadani sow maaha madaxweyne ku-xigeenka haddii ilaahay idhaa ilaahay baan la kaashanaynaa waanan helaynaa waxaana yeelaynaa haddii aan la yidhaaho sabir iyo dulqaad iyo nabadgelyayna ku noolaanno inuu waddankana wixii ka dhiman uu qabto iyaan u doorannay oon u taagannahay weeyaan sow sidaa maaha waxaan yeelaynaa gebi waad salaaman tihiin sidaa aad u soo dhowayseen rag iyo dumarba waad salaaman tihiin waanan u taagannahay insha allaahuna waan helaynaa assalaamu calaykum waraxmatullah sidoo kale waxaa hadalka iska daba qatay taageerayaal ku soo biiray xisbiga wadani محمد أنا waxaan hay beesha bahabar beel kamida marka oo kulka hore aan jirtay kulmiye maanta laga bilaabo waxaan soo baxay beesha wadani ayaan taageersanaa ku soo waxaan leeyahay wadani ha noolaato halka lagu helo ilaaha guuleysataan leh assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh yarta reer wadani iyo bulshadu waa salaamadii annaka oo ahayd marka hore kulmiye oo ahayn beesha leeraa BC amba baariga maanta boqolkiiba 95 waxaan nahay wadani waxa weeyaan anagu waxa weeyaan anaga kulmiye waxaan u aragnaa cadceed atar jooga oo sii dhacaysa hadeed wadana waxaan u aragnaa dayax soo baxaya ayaan codkayaga u siinaynaa wadani salaan kadib waxaan salaamayaa madaxweynaha aan dooranayno cabdilaahi ciro hanolal walaalayaal intaa waxa weeye rag iyo dumarba waad halgamaysaan cidda aad u halgamaysaanna
ومحي ووطني وطني ده وحوي أنا كتوريس مني وطني بالله وطني marka waxa weeytaan maxaan doonaynaa waa nabadgelyada iyo wanaagsanaanta iyo waxqabadka saxda ka musuqmaasuqa ma doonayn dhammaan hadda xisbiga wadani waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum anigoo ahaa marka hore xisbiga kulmiye maantana ka mid noqday xisbiga wadani umaanaan soo gelin xisbiga umaanaan soo gelin qabyaalad xisbigu ma aha qabyaalad in lagu galo ee waa dimuqraadiyad markaa dimuqraadiyadda ay ogolaatay inaan ka mid noqdo xisbiga wadani assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku soo dhawaynayaa taageerayaasheenna xisbiga kulmiye inagaga soo biiray mahadsan maanta waxaan u soo bannaanbaxnay xisbiga wadani ee raalli ma ka tihiin cagaha yaan laga ibanna caloosha ma kala socotiin aawiya berriba waxa weeyaan dawlado badan baan soo marray maantana kulmiye macna uud ku sii dhacay uun baan noqonnay dawla malihi dalla malihi weli dadnimada camal ka dambeeyaan nahay dawladdeenna wax inooga kordhay ma jirto maanta waxa weeyaan ninka cabdiraxmaan ayaan maanta u sacabtumaynaa musharaxayadeenna wadani ee maxaydan calankeeda iyo carradeedu asan tahay geelaba dee kulbaha shiir maamulbaa la maalaa maanta waxaan maalaynaa wadani wixii aan weynay oo dhan maanta wadani baa ka sugaynaa ilaahay inuu inaga siiya aamiin dhahada waxa weeyaan sidaahan isku aragnay hooyooyin walaalayaal mudayanaal marasida sharafta leh ilaahay inuu khayrkaahan u soo baxrayna siiyo waan soo carracsaadnay waan soo cagadaallay waan soo dhididnay kii khayrka lahayd maanta ka helayna waa wadani maanta waa niyaysana waa wadani waxa weeyaan iyaynaan aajisin iyaynaan maxayna xisbigeennaan dhaliilanin iyaynaan kala seexanin mid qudahaataan ahaan mid qudahaata han isku raacno xisbigeenna wadani ee doorannay innagaa doorannay oo gacanteenna ku xusannay oo ku doorannay waxaan doonaynaa inaad xisbigaa innaguna taageerayaashoodii noqotaan oo idaan been inaan isku sheegin waxaanu salaamayaa guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan cabdilaahi ciro iyo musharaxiisa maxamed cali cabdi ayaan salaamayaa salaanta islaamkaan salaamaya waxaan leeyahay waxaan doonaynaa oo makumiya wax inoo tartay oon daba yaacnaa halkii layna geeya sow ma garanaysiin degmada wixii qabsay sow ma garanaysiin absi ajkeennii wuu xidhan yahay waa la xidhay cid inoo hadlaysa iyo cid wax inoo doonaysaa toona ma jirto odayaasheenniyaan daba soconnay cidna wax kama qorayso waad ogtihiin markaasaan daba soconnaa oo dooranaysiin inaan iska dayno saw maaha hankeena haddaa faree hebel yayna kaa noqon qabiil ambaa qof aad garanaysid ambaa qof aad doonaysid waxaan doonaynaa waa isbeddel sow maaha inaan ka baxno fakrigan sixir bararka wasaaradan inagu habsatay maalintuu xisbiga kulmiye helay waa garanaynaa halka dollar intuu ahaa 7,000 oo shilin maantana 11,000 ayuu marayaa qofkii danyar ahaa ma haysto waxuu iskaga bixiyo arday ciyaalkiisii ambaa waxbarasho waxba uma gaaraya noloshiisa tayada
waxbarasho hooseysa oo dawladdan hadda jirta amba sii dhacaysa waxay ka qabatay malaha reekoonoo fadhiga ka kaca waa inaan isbedel doonaa waxaan rabnaana waa inaan ka baxnaa maanta magaaladeenu tuulo way ka baxday halkan caasimad ka noqon lahay tuuladii waa sii dhaafnay waaba kaba hoosaynaa inaan isoo soo saarna weeyaan codkeenu waa inuu meel na gaadhsiiyo midnibaana meel lagu gaadhaa midnibaa meel lagu gaadhaa dawladdan cusubna waxaan ka rajaynaynaa waxaan halkaa u soo baxnay maanta inagoonan garanayn wuxuu soo wato ilaahay khayrkiisa hayna siiyo waxaan rabnana waa inaan ka helnaa kolay noqoto caafimaad waxbarasho wax kastaba wado la'aan oo rafka badan eed arkaysid inaan soo marno inaan ka baxno insha allah inaguna anigoo ku hadlaya afkii dhallinyarta shaqa la'aan wax kasta haddaad maanta soo qalijibsiya haddii kale waxaad qabanaysaa ma laha bisaaradda nugaabsatana waa inaan ka baxnaa fakriga iyo gaajadana dawlad waxaa loo doortaa waa inaan lagaga baxo bisaarad sow maaha maxaa loo rabaa inaan lagaga baxo dulmiga iyo waxa sow maaha iyo cadaalad waa inaan cadaalad helnaa codkeenina waa inuu meel na gaadhsiiyaa bulshay waa guul waxaan rabnaa ilaahayna khayrkeenna hana siiyo inaan ku guulaysanana kuwii ku khasaare tacabkoogana ilaahay nagama dhigo inagoo wax qabiiliya wax kalena inagu jirin ammaankana ku dadaala xisbigan waa xisbigii cadaaladda waa xisbigii aan maanta ku halan lahayn xisbigan halkii aan gaari lahayn ee mustaqbalkii rajadeenna inoo waday rajadeenna waa inaan helno maanta waa kii macaanayay maanta qabyaaladda iyo dhulka dadka dadweynaha dadkii hantay ee qaatay waa laga soo daacinayaa maanta ma aha xisbigani xisbi ka shaqaynaya cadaalad darro ma aha xisbigani xisbi daba joogsanaya qof bilaadaya daba joogsanaya lama arkayo magaaladeenna boon maanta waxa u yar waa iskoolkii waad arkaysiin daryeelka oo ku fadhiyo waad arkaysiin maanta dhakhtarkii inuu xidhan yahay oo halyaha ka maanta ka socda oo ka jira ayaana jirin waad arkaysiin maanta taan ku sugannahay ee maanta aan doonayna inay xisbiga waddani u naga mayro qurunka iyo qabyaaladda oo xisbigu ay badi aaminsan yihiin inuu reer leeyahay xisbiga kulmiye xisbi reer buu noqday markaa run ahaantii anuma qaanayo sidaad wada ogsoontihiin xisbigeennani inta qaliilee degan magaalada boon way ka kooban yihiin cidna looma sheegan karo xisbiga waayo nin kastiba codkiisu doonayaa inuu ku helo ikhtiyaarkiisa wax kastoo rajaynayana ugu guulaystanaa waxaa laynoogu yidhi markuu xisbiga kulmiyeelay waxaa laynoo diidinayaa shaqaalaha alla beeriye waxaaba ka dambaysay in 8 bilood loo waayo mishaarkii shaqaalaha oo MCHkiina sidaa ku xidhmo hooyooyinkii uurka lahaa meel la dhigay laayeen cid u shaqaysay laayeen maanta waxay u baahan tahay gabadhii dhakhtaradii inaad adigu soo kiraysato oo tiraahdo waxa noo qabo marka waxaanu xisbigan ka sugaynaa waddani inuu MCHka inoo ballaadhiyo inuu dhakhtar caafimaad oo weyn inoo dhiso gaar ahaan degmadeenna boon waayo waxaanu inagu doonaynaa inuu boon ahaan wax inoogu qabto ma doonayno inuu reer wax inoogu qabto laakiin waxaan doonaynaa boon ahaan inuu wax noogu qabto beelo way harraadeen bayna yidhaahdeen waa qodobka koobaad way harraadeen bayna yidhaahdeen walaalayaal harraadkii baa ina dabagalay waa sannadan biyo la dhaami 7 sano ma jirto ceelashii baa inaga gura durdurrada ahaa walaalayaal harraadkaannu ka baxaynaa xisbiga waddani ee isbeddelka inoo samaynaya ee qabyaalo lahayn ee qurun lahayn hannu taageerno ha soo dhowayno waddani madaxda waddani iyo taageerayaasha soo dhoweeya qalbi furan ku soo dhoweeya dabxa furan ku soo dhoweeya dii iyo hoo iyo hadal iyo hantiba waan ila garab joognaa waxqabsigeenna waddani ha ahaado waad ogtihiin inay iskuulladii naga xilan yihiin dhakhtarkii inuu naga xilaya walaalayaal waad ogtihiin dhakhtarkii inuu naga xidhmay oo milafadii shalay la soo qaaday beelo ayaga ahayd
وحكاوا مليان لواي لا فرق ولا بيدكسي باور ولا بيدكسي بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka qaaliga sharafta leh assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dadweynaha halkan isugu yimiday ee munaasabada u soo baxay ujeedada ah xisbiga wadani wardaahad ma u tihiin daahad ma u tihiin intii hawsha daahad ma u tihiin dhammaan sidaynu ognahay degmadu way ka qaadan tahay adeegii bulshada wadogtihiinoo ciidankeenii amnigu maanta sariimadii dumarka ayaanu uga saarnayo aanu ku xarin ay maxay ahayd ku jiraan dhakhtarkii waad ogtihiin oo iskaa wuxuu qabsaday waxaynoo ma jiro 8 bilood lacagtii waa la leeyahay 8 bilood lacagtii waa la leeyahay dugsigii hoose dhexe waad ogtihiin oo aadan isaaq dabadii labadii qole intii la dhisay waxba laguma degin markaasay xisbiga kulmiye ay iska sheegtaan waxaynan qaaxiyayna lahayn ayay sheegtaan waxaan u sheegayaa madaxda xisbiga wadani dhammaan 18ka muxuu ahaa beelood ee hoos yimaada anigu degmo ma idhahda gobol baan idhahdaa inta kilomitir midkiiba 40 kilomitir buu isku jiraaye waxaan idhahdaa gobol waxaan leeyahay dhammaan waxay diyaar u yihiin oy cadcaad iyo dhaxan bay inii joogaan idinka weyn waxaan kulley ballanqaadkiinana way ka muuqatay inaad wax ka qaban doontaan insha allah annaguna si lama huraan si muxuu ahaa waan noo harayno codka insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu horreyn assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baad u mahadsantihiin taageerayaasha xisbiga aad baan idiin soo dhowaynayaa juhdiga badan ee soo muujiseen iyo hadalka iyo dhiirigelinta aad bixinaysiin hooyooyinka gabdhaha aabbayaasha dhammaan iyo dhallinyarada intaba waxaan leeyahay aad baad ugu mahadsantihiin wakhtigiina saad ugu soo horteen talabaad waxaan ognahay magaaladan waxay ku magac baxday magac la yidhaahdo iskaa wax u qabso waxay ahayd magaaladii ugu horraysay iskaa wax u qabso uu ka bilaabmay taas goorma ayay baaba'day waa ina horta laga fikiraa waxay baaba'day maalinkii dawladda kulmiye ay timiday waxaan ognahay qof wuxuu doonaya iyo qof ummad wuxuu doonaya inay marnaba sinnayn dawladda kulmiye waxay ahayd qof qabiil wuxuu doonaya ayaa watay laakiin waddani waxa wata qof ummadoo dhan wuxuu doonaya xaqa uu qofka ummadda maamulu leeyahay waxa weeyaan in la ixtiraamo laga dambeeyo taana maanta dhammaan waa la siiyey haddaan tusaale u soo qaadanno guddoomiyaha degmada laakiinse xaqii ummaddu ay ku lahayd ee ahayd inay u sinnaato ayuu isagu gabay oo wuxuu ka dhigay inuu in adeerkii uun wax siiyo taasina waata dadka kala jebinaysa iminka 2010kii baa u dambaysay tusaale ahaan xaafaduhu jaarka ahi wax way kala qaadan jireen laakiinse iminka ma kala qaataan taana waxaa sabab u ah nin ku yidhi aniga in adeerkaayo waxbaan ku siiyey dee seed ugu wareegiba inay noo wareegi waayaan inay qabyaaladana dhex dhigaan inay dadka isku diraan iyagaa keenay xisbiga kulmiye ayaa ka dambeeya waxaasoo dhan waxaa iminka magaalada ka jira waad arkaysaan waxbarashadii somalilan oo dhan waxaa ka dhacday ilaa 3,000 oo qof kamay dhicin weligeed inay arday imtixaan ka hoosayso liifanka la yidhaahdo laakiinse way dhacday taa waxaa sabab u ah iskuulkii iyo macallimiintii intaba dayactir looma hayo macallimiin ku filan looma hayo annagu haddaan nahay xisbiga wadani oon taageerayno waxaan doonayna maaha inaan anagu waxyeelama uma taageerayno laakiin waxaan u taageeraynaa inuu qof waliba
xaqii uu lahaa uu helo ayaa loo taageerayaa ee qofna uma taageerayo inuu isagu helo. doorta waa soo dadaalay waqti badanna aad bay dadkii taagan yihiin dhib badanna way jirtaa dadkuna aad bay u dhibaataysan yihiin waxaan soo qabannayna ama soo qabannay xusbiganna dadaalkiisa aad baan ugu jirayna maanta waxaan u haynaa xusbiga midnimada dhammaan odayaasha iyo xuqaasha dhallinyarada haweenka hadalku waa lii dhameeyey aniga waxba maanta iguma dhara haddeedna kolley way badan yahay hadalleey maanta waxaan leenahay isbeddelkii dadku aad buu muuqdaa waana la arkayaa isbeddelka ninkii doonay boon aad bay maanta ugu baahan tahay isbeddel bini'aadankuna way arkayaan ilaahayna waa arkayaa waxaana leenahay maanta waddani ayaa isbeddel waddee soo raaca waad arki doontaan isbeddelkiisa ninkii maanta soo raacay unbaa faa'iidaysanaya kii kalese uu ka hadhay booraysaa ula soco nina uma koodayna maanta wala uma soconno dharan baan u soconnaa ummadda qaranimada Somaliland oo dhan way iminkaa waxaan leenahay sidaasaan nagu soo dhawaynaynaa waktiguna nagu yaryahay ceed baa taagantiin dhibaatada sidaa uga socda waxaan ku soo dhawaynayaa inkana guddoomiyaha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحين نشتغل مريوات قرانيسين هلكي عيارو مريوات قرانيسين دوبني مريوات قرانيسين هلكي عولا مريوات قرانيسين أفرتي تكنيكا ليهو قرانيوات قرانيسين استبدل باربا عنهي الشغال عنهي الربا عنهي استبدل بارسونا sidoo kale waxaa xafladda soo afmeeray caaqil rooble xasan wacays oo ah xubnaha ugu sarsareeya ee xisbiga waddani ee degmada boon sheegayna inuu yahay waqti xaadirkani in loo baahan yahay isbeddel ballaaran waxaana uu ka mid ahaa kelmadihiisii sida tan aqoonyahanka siyaasiyiinta dhallinyarada haweenka ee hablaha hooyooyinka culimaauddiinka ee ubaxa kale ee sharafta badan dhammaanba intii ka soo qayb gashay bannaanbaxan ee aynu ku taageerayno xisbiga waddani maalintiisa walaalaha waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda salaam waxaan aad iyo aad ilaahay inti ka sokaysa ugu mahadnaqayaa taageerayaasha xisbiga waddani oo halkan taagnaa ilaa shalay 4 galabnimo ilaa hadda ay joogto kowdii ku dhowdhowdahay una taagnaa taageerada xisbiga waddani aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa anigoo ka wakiila xisbiga waddani ee ka mid ah golaha dhexe xisbiga waddani ugana wakiila halkan madaxda sare xisbiga waddani degmada boon iyo agagaarkeeda aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa taageerada fiican ee aad muujiseen iyo muxuu ahay waktigiinni siiseen kuwii dheryaha karinayey kuwii hawlaha kala lahaa ama hurteen xisbiga waddani aad iyo aad baad u mahadsantihiin in yar baan hadalkayga badin maayo waayo wax badan baad qorraxda taagnaydeen dhowr qodoboo yaryar baan idiin faahfaahinaya marka hore kulmiye ku dheeraan mayno ilaahay hadduu xilkay nagu guureeyo in yar baa kaad ku sakootii mayno cayiya hadalla xunxun cidna caayi mayno laakiin siyaabaha loo dhaqmayo marka la eego waa wax marmarka qaarkood u baahan in laga hadlo kulmiya horumar baa laga doonayaa iyo dadkan inuu wax u qabto waxay dhaafilayihiin xafiis waddani kiraystay ayaa la dhaafilayo laleeyahay maxaa adoo reer hebela looga kiraya xisbiga waddani wax macquulana maaha inamadii waddani u shaqaynaya xisbiga habaa laleeyahay adigu reer hebel baa tahay maxaad u raacday waxaasi ma saxda waa wax lagu
yaqaano caado u leeyahay xisbi laakiin innagu caado xisbigani uma leh xisbigani ma laha qabyaalad ninna loogama dhowa waxa weeye dastuurkiisa iyo shuruucdiisu waxa weeye inay dadka isku keenaan walaaleeyaan wax ku wada noolaadaan shar iyo qayrba inay qaybsadaan taas weeyaan xisbiga waddani ujeeddooyinka uu leeyahay ku laaban maayo xisbiga kulmiye laakiin waxaan leeyahay ha iska daayo oo horay ha uga socdo tartan xalaalahan tartanno ha ka sii socdo yuuna guryaha waddani kiraystay iyo dhallinyarta waddani ka tirsan ku warwareegine horay ha uga socdo wax ummadda anfacaha soo bandhigo inuu ku ololeeyo maaha xisbiga kulmiye waxyaalihii hay-adaha caalamigii inoo dhiseen inuu ku ololeeyo annagaa dhisna yidhaahda maaha ceel ajanabi noo qoday inuu ku ololeeyo u yidhaahda annagaa dhisnay maaha FCH uu dhisay hay-adi noo dhisay inuu ku ololeeyo maaha waxa looga baahan yahay xisbiga kulmiye wuxuu isagu qabtay baa laga doonayaa inuu ummadda u soo bandhigo waase la arkay oo 7 sano ayuu haystay dalka 7 sano ayuu dalkan xukumayey wixii laga dhaxlayba waa loogyahay haddii la haraaday iyo haddii wax lagaba ummaddu way garanaysaa xisbigani waa xisbigii daraja weeyaan xisbigii barwaaqada weeye annagu waa la haraaday odhan mayno xisbigii barwaaqada weeye xisbigani taasi sidaas weeyi ta kale waxa weeye waxaan idiin sheegayaa 2 qodob un baan ku tari bulshadu waxay u baahan tahay horumar soo uma baahna xisbiga waddani horumar buu keeni insha allah bulshadu waxay u baahan tahay qabyaaladda in laga saaro soo uma baahna insha allah qabyaaladdaannu ka saaraynaa muxuu ahaaye dalkan somalilan bulshada qabyaaladdaannu ka saaraynaa waxa weeye sixir barar baa dalka ka jira soo maarayn uma baahna insha allahu xisbiga waddani maarayn buu keeni doonaa hadduu ku guulaysto wuxuu keeni doonaa maarayn dhaqsa ayuu keeni doonaa ummadda wuxuuna ku dadaali doonaa halkii daayirayaale kaga tegay inuu sheenka soomaaliga inuu ku celiyo iminka ay la baaxaa degayaan dadkan masaakiinta ee danyarta ay la baaxaa degayaan halkiisii inuu ku celiyo ayaa insha allah ku dadaali doonaa isagoo ilaahay kaashanaya bulshadu waxay u baahan tahay caafimaad in laga dhiso soo uma baahna xisbiga waddani wuxuu ku dadaali doonaa inuu ka caawiyo inuu muxuu ah umulraaca iyo haweenka isku umulraacayo dhulalka qaarkood oo ay ka mid ahayd habeen hore inaan calihelay ka soo qaado gabadh halkaa ka umulaysa intaa u dhaxaysa boon ilaa iyo meesha la yidhaha baki ilaa iyo xariirad meel u dhaxaysa FCH iyo boon inta u dhaxaysa ayna jirin iyo fikaagan inta ka dhexle meel FCH oo la taaban karo oo umurna geyn karaay ma jiro ama kili laga bixin karaay insha allah wuxuu ku dadaali doonaa xisbiga waddani in uu gaarsiiyo meesha ugu yareen boos ama muxuu ahay FCH inuu gaarsiiyo si loo daryeelo umurraaca looga baxo haweenka loo daryeelo da'da yara isku go'aya waxbarashada waxa weeye soo looma baahna in la hormariyo soo looma baahna waxa insha allah waddani uu hormarin doonaa xagga waxbarashada aad buu hormarin doonaa soo xoolaheenna in la dhaqaaleeyo dhulka loo ilaaliyo dawadooda la ilaaliyo soo looma baahno bulshadu uma baahno insha allah xisbiga waddani uu ka shaqayn doonaa arrintaas waxbuuna ka qaban doonaa meelaha biyaha biyola'aantu ka jirta sow biyo loogama baahna insha allahu biyaa la samayn doonaa biyo xidheennaa la samayn doonaa hadduu xisbigani ku guulaysto meelaha ugu yaryar berkadaa laga samayn doonaa meeriigab waa la qodi doonaa insha allahu waa lagu baahin doonaa biyahana dalka boonna waa la soo gelin doonaa biyaha qof walba aqalkiisa insha allah uu ka dhaansan doonaa biyogelin baa lagu samayn doonaa insha allahu insha allahu baan leenahay ma aha hadal siyaasadeed maaha ku talagalka waddani weeyi taan ku ballannay weeyaan ta madaxda sarsare ee xisbiga waddani aan kala ballannay weeyaan taan kula galla shuruudaha weeyi taan ku raacnay weeyaan xisbiga isbedel doonka iyo noocaan ku raacnay sidaas weeyi sow idinkuna kuma raacin sidaa kuma ida raacin waxaan idinka sidaa madaxda sarsare ee xisbiga waddani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro
iyo maxamed cali oo cabdi oo ku-xigeenkiisa salaan kashka iyo laabta ka soo goodaya taageerayaasha xisbiga wadani uga sidaa taana guddoona insha allahu maanta waxay ahayd maalintii ugu horraysay xisbiga wadani ee ulahaa ololaha ee uu sharciguu siiyey ayay ahayd 23 bisha Oktoobar insha allahu 2 cisho ka bacdida maalin baynu leenahay 7 cisho aynu leenahay intaas baa inagu hadhay hawl waxaan ku u sheegayaa taageerayaasha xisbiga wadani inay inta iyagan u ahaadaan insha allahu oo ay garab taagnaadaan xisbigooda xisbigani hantida dawladda ma hayo hantida cashuurta la idinka ururiyo xisbiga kulmiya ku tarfanayo ma hayo bulshada ala xisbigan iyadaa wax ku tarsanaysa iyadaa hiliyahooda laag taagan iyadaa hantida gashanaysa iyadaa tabarruc ugu shaqaynaysa insha allahu dib bay ka heli doonaan waxaan u sheegayaa inay intaas iska samraan oo intaas sabir laag joogaan oo ay intaa noo hadhay yara gaaban inay arrintooda inay xisbiga sidaa hiliyahooda tag aad iyo aad baad u mahadsantihiin boqolkiiba boqol waad mahadsantihiin waxaa si toosa iniigu soo tebiyey wariye kormeere shabakadda caalamiga Somali Media degmada Bonn.